بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا أنس عبد الرشيد كانت ترسل dhalinyarada مؤسسة التوعية هداية waxaan idin soo gudbinayaa hogaamiyayaasha ruuxiga ah ee dacwadda iyaga oo yaryar dacwadda bilaabay 2001 sawirkan iyo fiidiyowgan yar ilaaga waa 2003 Sheekh Mustafa oo ka hadlaya duulaanka maskaxda qasuul fikri iyo gudoomiyaha mu'assasada tawciya Sheekh Saad Maxamuud Sheekh Muuse oo xiriirinaya muxaadaradaas iyo gudoomiye ku xigeenka mu'assasada Sheekh Ismaaciil Caynaashe oo la fadhiya maanta ay taariikhdu islaamku ay tahay soddonkii Shawaal oo u dhiganta 3 January 2003 ujeedada aynu isugu nimid maanta waxa weeyaan ardayda maadaama ay galeen fasalkii ay galeen si ay uga faa'iidaystaan culumada ayaa waxaa loo soo diyaariyey nadwa cilmiyeed nadwada oo runtii ku saabsan duulaanka maskaxda ama qasuul fikri موضوع سؤال بلادن أو أجمعية وهو الذي يمكنني أيا إن شاء الله تعالى وفي الله نولا قدره جمعها هي جمعها ترضوها وإنوص أنظرها حالا يوم يجري فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر الدين إلى الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون وحركها متى بلاد الدوام الشيخ مصطفى وحركها الدوام غزو الفكري شامل التعليمي sidoo walaaqeed ilmaamay waxaan wixii garasiye ka hor doona mawduuca ku saabsan اللغة والفكر في جانب التعليم أما موضوع معلم في هيوانك لغة إلى مجتمعات مسلمة ويروح إلى كل الرجالات قارهان بعض خصوصا تعليم caruur yaryar ama waxba haysan ama masaakiina wadooyinka ka boobtaan oo qaadataan oo kiristaamaysa ama rag aan waxba haysan baa hunguriga baabka ka martaan oo kiristaamaysa saddexdii muxaadaraadka ay mu'assasadu u qaban jirtay waxay ka tirsanaayeen 4 dugsi sare ee xilliga jiray ardaydii dugsiga Maxamuud Axmed Cali Gacan Libaax Faarax Umar iyo 26 Juun boodhadhkaana xilliyadaas ayay samaysteen 2003 ilaa 2004